بسم الله الرحمن الرحيم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. شيخ الماء aan nolol ku dhalan oo bimacnaa geeri ku dhashay magac ma loo bixinayaa se ma loo wanqalayaa se salaad ma lagu tukanayaa sheekh waa maxay xukunka mudaharaadada qadiyada ku xigta waana halkay u dhimatay hantida guud hantida qaran xoolaha ummaddu ay leedahay dekada barbaro wixii ka soo baxaya lacagaha kale dawladeed waa lacag la wada leeyahay wey madaxweynena ma laha wasiirna ma laha agaasimana ma laha barasaabna ma laha maayarna ma laha shaqaale dawladeedna ma laha waa xoolo la wada leeyahay wey العلم والتبيين ومسائل في الدين بسؤال أهل الذكر وعلى هدى الوحيين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد بن عبد الله. أما بعد إخواني عاوة وتاريخ دعيتهي 1439 hijriga bisha rabiicul awal ay 5 tahay waafaqsan 2017 bisha 11aad 23keeda bisha November waxaynu u fadhinaa oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala ina soo waafajiyay inaynu bilowno xalqadii koobaad barnaamijkii fataawaha ahaa ama su'aalaha iyo jawaabaha shicaar aynu uga dhignay ama ciwaan aynu uga dhignay xadiidkii rasuulka inama shifaa'u al-'ayyi su'aal oo Soomaalina ku noqonaya daawadaada diineed waa weydiin tarjumada macnawiga ah waxa weeyaan Soomaali ahaan aynu u sameeynay barnaamijka isaga ah oo jumcad sii horeysay furitaankiisii uu ka qabsoomay masjidkan aynu fadhino laguna faahfaahidiyay ahdaafta iyo ujeedooyinka laga leeyahay barnaamijka waxa barnaamijka isaga soo qaban qaabiyay oo isku soo dabariday markaska la yiraahdo markasul afaaq lil buxuuth wad diraasaat وأن ودوكسونها ومقالة كثيرة isagoo kaashanaya muassasatul karam lidacwati watanmiya oo iyaduna muassasadii dacwadii waxa weeyaan gobolka ah barnaamijka waxa sheekhu noqon doona insha Allah ta'ala sidii horena loo sheegay oo su'aalihiisa ka jawaabi doona fadiilatu sheekh Dr. Xasan Sheekh Ali Warsame oo waxa weeyaan dhinac fadhiya ayaa sheekha barnaamijka noqon doona hadii Ilaahay ka dhigo barnaamijka wuxuu qabsoomi doonaa hadii Ilaahay ka dhigo si jumca dhaafa caawa oo jumca xalqada koowaad ba bixaysa jumcada soo socota waa la nasanaya hadii Ilaahay ka dhigo jumcada ku xigta ayaa xalqada labaadina ay dhici doontaa hadii Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu ka dhigo barnaamijka su'aalaha waxa weeyaan sheekha lagu weydiinayo laba qaab baa lagu soo gudbinayaa qaabka koowaad wuxuu yahay sanduuq ayaa masaajidka halkaas lagu dhajinaya hadii Ilaahay ka dhigo hada waa yaala sanduuqaas lagu ridayaa oo qofku markuu jaanis helo usbuuc oo dhan buu haystaa su'aashiisu soo diyaarsanaya halkaas ku ridaya
qaabka labaad ee su'aalaha loo soo gudbinayo gaar ahaan dadka aan magaaladayna la joogin ay u soo gudbin karaan waa emailka inay ku soo gudbiyaan emailkana ciwaankiisu wuxuu yahay weydiimo@gmail.com weydiimo@gmail.com ayaa lagu soo gudbinaya insha Allah way fahamsan yihiin Soomaaliya Soomaali weeyaan waa Soomaali inta dambe baa de English barnaamijka insha Allah ta'ala wuxuu si rasmi ah uga bixi doonaa TV-ga la yiraahdo Somali News ayaa tabin doona insha Allah ta'ala si rasmi ah u sii deyn doona waxa kale oo laga heli doona hadii Ilaahay ka dhigo barta markaska YouTube-ka uu ku leeyahay oo qofku ku qorayo markasul afaaq lil buxuuth wa diraasat halkaas uu ku tagaya insha Allah ta'ala intaasi waa muqaddimo ama hordhac ku saabsan waxa weeyaan barnaamijka aynu caawa xalqadiisa koobaad u fadhino waxaan insha Allah ta'ala u gudagalaynaa su'aalaha intayna su'aalaha u gudagalin waxaynu ku soo dhaweynaynaa insha Allah ta'ala sheekha barnaamijka inuu ku soo dhawaado barnaamijka falyatafadal insha Allah su'aasha koobaad ee walaaluhu ayna soo weydiiyeen waxay noqonaysaa dabcan gabadh baa ina soo weydiisay waxay leedahay haddii aan safrayo oo aan safar gelayo waxaan u baahanahay maxram baan u baahanahay ilmo 10 jir ah ayaan waxa weeyaan haystaa ilmaha 10 jirka ahi maxram may noqonaya haddii cid kale oo maxram ii noqota aan waayo alxamdulilah rabbil aalamiin صلى الله وسلم وبارك وانعم على نبينا وخليلنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد sida asalka ah gabadhu ciday maxram ka dhiganaysa waa qof qaan gaadhay wuxuu nabigu calayhi salaatu wasalaam xadiidka bukhaari iyo muslim ku yimi la tusafiru almar'atu masirata yawmin wa layla alfaada qaar waxaa ku yimi masirata yawmayn qaar waxaa ku yimi masirata 3 ayaam ilaa wa macaha duu maxram gabadhu socdaal geli mayso ilaa inuu weheliyo mooyaane qof maxram u ah oo laba inuu waxa weeye la socdo mooyaane sharcigu axkaamta wuxuu kula hadlayaa dadka qaangaadhka ah marka asalku waxa uu yahay gabadhu ciday maxram ka dhiganaysaa inuu yahay qof qaangaadha isagayna masaalixda ku qumaysaa oo ujeeddadii laga lahaa gabadha in la ilaaliyo danaheeda inuu u gudo in lagaga haybadaysto oo aan la soo hungurayn waxyaabahaasoo dhan waxaa u qumaya oo ay ku habboon tahay qofka qaangaadhka ah laakiin culimmadu waxay isweydiiyeen sida su-aasha ka muuqata haddii gabadhii ay weydo waxa weeye qof qaangaadha ilmihii muraahiqa ahaa ee qaangaadhka ku dhowaa ee wax kala soocayay waxa weeye ma noqonaya maxram mise noqon maayo culimmada qaar waa diideen sida xanaabiladoo kale oo waxay idhaahdeen qaangaadhun bay ku ansaxaysaa culimmada qaarna way banneeyeen qofka muraahiqa ilmo kastaba maaha qofka qaangaadhka ku dhowaaday ee wax kala soocaya laakiin culimmada laftoodu madaahibta kale qolaba macnay ku xidheen shaaficiyadoo kale waxay yidhaahdaan waa inuu yahay qof wax fahmaya oo maskax leh oo gabadha ilaalin kara oo mudakara waa inuu yahay waxay iyagu ka cabiraan wajaaho qof weji leh laakiin soomaali ahaan qof mudakara waa inuu yahay 10 jir mid waxaa laga yaabaa in la moodo qaangaadh dherarka iyo xoogga iyo caqliga iyo maskaxda iyo hadalka waxaa laga yaabaa in la moodo qof weyn mudakar inuu yahay xilliyada qaarna 10 jirka waxaa laga yaabaa in loo maleeyo 5 jir loo maleeyo shaaficiyadu iyagu saasay u dhigeen walibana waa haddii ay u baahato maalikiyadu
iyagu waxay yidhaahdeen hadduu mumayiz yahay oo wax kala soocayo waa gudaysaa. xanafiyaduna iyagu waa ilaaqeen oo waxay yidhaahdeen qaangaadhka hadduu ku dhowaado yaanu qaangaadh noqon gabadhii maxram waa u noqonaya. laakiin waxaan isugu soo duuduubaynaa gabadhu intay helayso qof qaangaadh oo maxram u noqda waxa weeye ka ansixi mayso. ilmaha sabigay kaxaysanaysaa waa maxram la'aan wey. laakiin haddii ay weydo intay maxram la'aan bixi lahayd ilmo waxa weeye wax kala garanaya oo mumayiza oo mudakara oo qaangaadh ku dhow yaanu bidabdi qaangaadh noqon danta waa u gudaya insha allahu tacaala haddii kifaayadu ay ku fillaanayso oo lagaga joogsanayo oo waxa weeye danihii uu qabanayo maxramka loogu talagalay waa ka gudaya insha allahu tacaala. laakiin asal ma aha waa dani ku khasabtay wallahu tacaala aclam. جزاه الله خير الجزاء شيخ الله كابال مريو. سؤال شلبات وحسائل كلية هاي وينسوي دينيا وحنمي مساجدكي وصلاة دي ليغا هرقلي وصلاة دي قيب كمي داي تكتي وحن كو حدي إمامكي بان كو حدي مركان صلاة دي حدنيي وحن وضا حدني صلاة دي اسكمر داد كالي oo safka aan wada galay markii salaadii imaamkii uu ka baxay ayaan garan waayay waxaan imaamka ka soo gaaray imsa ragcadood baad imaamka la tukatay ayaan garan waayay. may bannaan tahay inaan qallito oo aan ku daydo dadkii isku mar aanu salaada xidhanay ee igu xigay inaan waxa weeyaan qallito may bannaan tahay buu saa'ilku leeyahay. qofku hadduu sahwiyo sahwigu waa noocyo. waxaa ka mida sahwiga inuu isagoo hilmaansan wax ziyaadiyo dheeraad u keeno. waxaa ka mida inuu wax nuqsaamiyo. waxaa ka mida tiradii inuu ka shakiyo ma 3 baad tukatay mise 4 baad tukatay. qofku hadduu sahwiyo sharcigan wuxuu u dajiyay wadooyin uu marayo si shakiga iyo sahwiga uu uga baxo cibaadadiisuna ay u dhammaystirnaato. qaababka lagaga baxayo marka shaki lagu dhaco wuxuu noo sheegay nabigu calayhi salaatu wasalaam 2 qaab. qaab waxa uu yahay inuu qaato hubaalka inuu qaato shakigana uu zuuliyo sida xadiiثu abi saciid oo muslim ku yimi uu tilmaamayo nabigu leeyahay calayhi الصلاaةu والسلام إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى أثلاثا أم 4 فليطرح الشك وليبني على ما استيقن. mid idinka mid hadduu shakiyo oo uu isku qabto salaadii ma 3 baad tukatay mise 4 shakiga ha tuuro hubaashana ha qaato. hubaashuna waa inta yar wey. يعني wuxuu isku hayaa ma 3 baad tukatay mise 4 ma 3 baad tukatay oo mid afraad lamaad iman mise 3 baad tukatay oo mid afraadna waad la timi. wuxuu hubaa mar walba 3 inuu tukaday buu hubaa laakiin wuxuu isku hayaa 3 ma ka badiyay. wuxuu nabigu calayhi salaatu wasalaam waxa lagu daweynayaa shakigaas hubaasha in la qaato ma 3 mise 4 afartu waa 3 iyo dheeraad wey. 3duna waa 3 hubaashu waa 3 wey. wuxuu la imanayaa 3 buu la imanaya. taa waa lagu daweeyaa nabiguna waa sheegay calayhi salaatu wasalaam. taa markuu la yimaado cidda taa la imanaysaa waa isaga. dad kale cuskan maayo isagaa laga sugaya waayo isagaa lala hadlayaa falyabni calaa ma stayqan wuxuu hubsaday cibaadadiisa ha ku dhiso. dawada labaad ee nabigu sheegay calayhi salaatu wasalaam xadiidka cabdillaahi bni mascuud ee bukhaari iyo muslim ku yimi baa inoo tilmaamaya. wuxuu leeyahy nabigu calayhi salaatu wasalaam falyataxara sawaab sawaabka ha ku dadaalo. yacni sida uu u badinayo waxa weeye ha ku dadaalo. marka qofku waa 2 xaalo. mar inuu ku shakiyey 3 iyo 4 laakiin boqolkiiba 70
ama 80 wuxuu u badinayaa markuu wax isu geeyo inuu 4 tukaday waa falyataharra sawaab sida uu u badiyay ee uu ku qancay ha ku socdo waa hadii sawaab uu u muuqdo uu ka ijtihaadaya sida uu ay ula badan tahay ama tii badnayd ha noqdo ama tii yarayd ayuu ku dhaqmaya waa xadiis Abdullah ibn Mas'ud oo tilmaamay haday isku dhawaato ama uu kala sixi waayana wuxuu qaadanayaa tirada yar buu qaadanaya hadduu kala sixi waayaba ma midba ma laba ma saddexba ma afarba wuxuu sheegaba uu garan waayo mar walba wuxuu qaadanayaa ta ugu yar hadduu kala sooci waayo labada xaalo ayuu qofku ku camal falaya ama xaaladda saddexaad intuu labadaaba ka tago dhinacyada uu eego hebel baad wada socoteen hebel waxa weeye hadduu kacana kac hadduu salaamu naqsana la salaamu naqso ta noocaasa mid lagu daray maaha waa laga yaabaa hebelka laftiisu inuu saawisan yahay baa laga yaabaa laakiin adigu insha allahu tacaala si aad cibaadadaada u ilaaliso maa xaka jildaka mila dufrika bay carabtu ku maamaaha jirkaaga ku cuncunaya keebaa macaan ama ku wanaagsan inaad adigu xoqoto oo aad qiyaastaysu hayso iyo inuu qof kale kuu xoqo waa inaad adigu isu xoqda wey marka cibaadadaada adigu inaad gacanta ku haysato oo adigu aad ka gungaadha ayaa mudan insha allahu tacaala marka labada tii ku fududaata ayaad samaynaysaa insha allahu tacaala dadka kula tukanayana waxba ku dhisimaysid insha allahu tacaala wallahu aclam جزاه الله خير الجزاء سؤال صدحات سائلك وحليهي شيخ الماء aan nolol ku dhalan oo bimacnaa geeri ku dhashay magac ma loo bixinayaa se ma loo wanqalayaa se salaad ma lagu tukanayaa su-aashu waxay ku saabsan tahay ilmo waxa weeye gabadhii ay dhicisay oo ku soo dhacay isagoo meyda hadduu nolol ku soo dhaco kadibna uu dhinto daqiiqadaba ha noolaado yacni nolol buu ku soo dhacay isagoo qaylinaya ama ooyaya ama nololi ku jirto sikina ka bacdina waa dhintay waa qof dhintay wey waa lagu tukanayaa magacna waa loo bixinaya waana loo walqalaya laakiin waynu ka hadli doonaa insha allahu tacaala taasi waa xaalo in lagu tukanayana waxa weeye waa la isku waafaqsanyay xaaladda labaad waa inuu dhasho oo gabadhii laga soo saaro ama ay dhasho ilmihiiyo mayda gabadhii way dhicis waxay dhashayna waa meyd laba xaalaynu u kala qaadayna waxa ay gabadhu dhigtay ee ay dhashay ee meydka ah ma noqoy 4 bilood iyo wax ka badan yacni xilligii nafta lagu abuuray iyo ka badan uurkaasi 5 bilood buu ahaa 6 bilood 4 bilood buu dhammaystay 7 bilood 8 bilood ka noocaasa haddii uu ku dhinto isagoo mayda isagana waa lagu tukanayaa nabigu wuxuu alayhi salaatu wasalaam xadiidkii al-Mughira ibn Shu'bah wuxuu nabigu alayhi salaatu wasalaam wasiqtu yusalla alayhi ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة ilmihii waxa weeye la dhiciyay waa lagu tukanaya labadiisa waalidna dambi dhaaf iyo naxariis baa loogu ducaynaya xadiidkan abi daawud iyo nasaa'i baa soo saaraya waana xadiid sugan oo hadduu ugu sahlanaado waxa weeye xasan noqonaya haddii aanu saxiix baahay xadiid sugan wey xadiiskaas wuxuu tilmaamayaa ilmihii meydka ku dhashay in lagu tukanayo way jiraan culimada qaar odhanaya kaa laftiisu maadaama uu ku dhashay isagoo mayda waxa weeye lagu tukan maayo laakiin waxaan leenahay xadiidkaas inagoo cumuumkiisa qaadanayna raajixu waxa uu yahay
afar bilood hadduu ka badan yahay in lagu tukanayo mayd baa ku dhashay waxaa timi magac ma loo bixinaya ma loo walqalaya haddii naftii lagu abuuray oo muddada aynu sheegnay uu gaadhay in badana culimmada ka midi waxay yidhaahdeen waa sunne in loo walqalo magacna loo bixiyo waa sunne waxa weeye habboon in la sameeyo laakiin taa lafteeda waa laysku hayaa wuxuu hi nabigu calayhi salaatu wasalaam kullu ghulaamin murtahanun bicaqiiqatih yudbaxu canhu yowmu saabici wayuxlaqu wayusama xadiidka uu soo warinaya alxasan albasri can samura oo hadal uu ku jiro hadalkaasina uu yahay xasan samura ma ka maqlay mise kama maqal waa sanad macruufa wey laakiin raajixu uu yahay wijaado inay tahay ama kitaab inay tahay laguna camalfalayo sanadku haddii uu ansaxo ilaa xasan laga gaadhay xadiidka waa lagu camalfalaya xadiidkaasi bacdu ahlilcilmi waxay ka qaateen ilmaha marka loo walqalayo magacna loo bixinayo inuu ilmahaasi gaadho maalinta toddobaad yudbaxu canhu yowmu saabici wayuxlaqu wayusama maalinka toddobaad markuu gaadho iyadoo laga bilaabayo maalintuu dhashay maalinta noocaasa magacna loo bixinaya walqalna loo samaynaya laakiin magaca in loo bixinaya mar walba axaadiid kale ayna tusaysa oo bukhaari iyo muslim waxaa ku yimi nabigu calayhi salaatu wasalaam inuu yidhi wulida liya laylata waladun wasamaytuhu ibraahim xalay ilmaa ii dhashay wiil baa ii dhashay waxaanan u bixiyey ibraahim baan u bixiyey yacni maalinkuu dhashaba magac waa loo bixin karaa maalinka toddobaad lala sugi maayo qadiyadda ku saabsan in loo walqalayana awalba sunnay ahayd waa cibaado laynoo jideeyey waa mahadnaq alle subxaanahu wa tacaala loo mahadnaqayo iyaduna waa furantahay insha allahu tacaala qofku haddii uu doono inuu u walqalo waxa weeye waa u walqalayaa marka ilmihii maydka ku dhashay afar bilood ka badnaa nafta lagu afuufay ilmaha noocaasa waana lagu tukanayaa waana loo walqalayaa sunnanimo ciddii doonaysa ajarkaa inay hesho magacna waa loo bixinayaa ciddii doonto insha allahu tacaala waa sunne wallahu tacaala aclam جزاه الله خيرا سؤال أفراد وحسائل كلية هي وسؤال إسلام القشة كسابسا نفك الله والقليو المها هو شيء نفكاسي شروط من لغو حرية سيدا وضحية ده شروط أيولي ده هاي إساقنا شروط من لغو حرية عقيقة waxaa la gowracayo axaadiistu waxay inoo tilmaantay shaah neef adhiya axaadiista marka laysu geeyana shuruud bay sheegin marka bacdu ahlilcilm sida shawkaani oo kale iyo waxay ka qaateen caqiiqada wixii la soo gaadhaba walqasha waxa la gowracayo waa wixii la soo gaadhaba waayo axaadiista nabigu calayhi salaatu wasalaam way itlaaqda oo shuruud kumay xidhin laakiin sida jamaahiiru ahlilcilmi ay qabaan ee loo badan yahay waxay tahay afarta madhaboodna ay qabaan in waxa weeye shuruuddii udxiyada loo baahan yahay udxiyaduna shuruud bay leedahay sababtay taa uga mid dhigeenna labaduba waa neef la gowracayo allana subxaanahu wa tacaala loogu dhowaanayo mahadnaq ilaahay looga mahadnaqayo nicmo uu bixiyeyna loo jideeyey waxyaabo badan bay iska shabahayaan waa la isaga qiyaas qaadanaya shuruudii udxiyada loo xidhay baa caqiiqadana loo xidhaya sidaasaana axwata shuruuddaasina waxay tahay laba isugu imanaysaa neefka la gowracaya dadii loogu talagalay inuu gaadho dadaasina waxay tahay hadday idaha tahay waa inuu sanad gaadhaa riyaha haddii ay tahayna 2 sano inuu gaadhaa lo haddii ay tahayna 2 sano waa inay gaadhaa geel hadduu yahayna 5 jir waa inuu gaadhaa athani kaasaa la yidhaahdaa kaas da'diisu waa inay tahay
shardiga labaad ceebaha waa inuu ka maran yahay ka koowaad da'dii udxiyada waa inuu gaadhaa ka labaadna waa inuu ceebaha ka maran yahay diidaya neefka in lagu udxiyaysto alcawraa albayinu cawaruha waalcarjaa albayinu carajuha waalkasiira allatii laa tunqi waalcawraa albayinu cawaruha yani tii cawarnayd tii xanuunsanaysay ee xanuunkeedu muuqday tii weyda ahayd ee aan dhuuxa lahayn iyo tii jabnayd ee aan soconayn intaaba udxiyada gudi mayso waxaa kaloo la mida wax allaale wixii nuqsaaminaya hilibka nuqsaaminaya idihii oo kale haddii baridu ka go'an tahay hilibkii qayb baa ka maqan wixii manfacada lahaa qayb baa ka maqan haddii waxa weeye dhaguhu wada go'an yihiin qayb baa ka maqan haddii waxay ka maqan tahay ama hilibkiisa ama manfacadii qayb ka midii ay maqan tahay waa ceebaha lagu celinayo amaa geeska iyo wixii la mida isagu saamayn ma laha geesku saamayn ma laha hadduu jaban yahay iyo hadday qayb ka midii maqan tahay iyo haddii waxa weeye u wada maqan yahay isagu wax saamayna waxa weeye ma laha wallahu tacaala aclam jazaak allahu khayran su-aasha shanaad saa'ilku wuxuu leeyahay sheekh haddii cidi alaab ay ii dirsato alaabtaana qiimo aan ku ogaa oo qiimo ay macruuf ku ahayd qiimihii qiimo ka jaban aan ku helay lacagtiina wax iiga soo baaqi noqdeen lacagtaas soo hadhay inaan qaato anigu may bannaanta miaal ahaan $100 baa lacagta waxa weeyaan ay ahayd alaabtana $100 baa la siin jiray dukaankiibu wuxuu kaga soo helay $80 $20 ee soo hadhay ma qaadan karaa buu leeyahay sheekh qofkaas waa qof loo wakiishay inuu wax soo iibiyo waa wakaalatun fi shiraa qofkaasi waa wakiil wey wuxuu kuu wakiishay mobayl $100 inaad u soo iibiso mobaylkana waxaa lagu ogyahay suuqa $100 in laga siiyo $100ka wuxuu kuugu dhiibay ama adaa u sheegay oo yidhi $100 baa la siiya ama waad isla ogtihiin $100 in la siiyo waad isla ogtihiin waxaad tahay wakiil baa tahay loo wakiishay shaygaa inuu soo iibiyo wixii lacagee baaqi soo noqda waxa weeye xaq uma lihid waxaa iska leh qofkii ku wakiishay baa iska leh xoolihiisay ka mid tahay adigu waxaad xaq u leedahay awalan markuu ku wakiilanaya inaad tiraahdo maalan waar maxaa mushqaayad leeyahay waad ogtahay bahalka $100 baa la siiyaa way bannaan tahay alwakaalatu biajrin mushqaayad in la isku wakiisho baaqiga ma qaataa ama lacag cayiman aad ku heshiisaan inuu ku siiyo culimmadu waxay yidhaahdeen ma bannaana qofka hawlkuu wakiishay hawshiina kharashkii ku baxaya ay wax ka soo noqdaan lacagtii soo hadhay isagoo aan ogeyn jeebka inaad gashato xaq uma lihid wixii soo noqdaa isagay u soo noqonaya laakiin waxaad xaq u leedahay inaad weydiisato lacag inaad kula sii heshiiso iyo waxyaabo la mida inaad ka fasax qaadato ayaa xaq lagugu leeyahay taasina waxay ku dhisan tahay laa yaxilu limuslimin an ya'khuda casaa akhiihi bigayri tiibi nafsin minhu ina dima'akum waamwaalakum waacraadakum calaykum xaraam qofka muslimkaa xoolihiisu xaaraan bay kaa yihiin lacag inaad ka qaadatana iskumaydaan ogey kii alaabta iibinayay lacagtiisii waa qaat baaqiga isagaa iska yeelanaya adiguna muxsin baa tahay haddaydan lacag ku heshiin mid samafalaya oo walaalkii hawl u qabanaya ayaa tahay marka lacagta ogaan la'aan lama qaadanayo wallahu tacaala aclam jazaaka allahu khayran su-aasha lixaad saa'ilkani wuxuu leeyahay sheekh haddii aan tabarucaad aruurinayo ama lacag
dad lagu caawinayo aan aruurinayo lacagtaas aan aruuriyay qayb kamida mushqaayad ama ujro ma u qaadan karaa buu leeyahay qofka jamcinaya lacag samafal horta waa laba lacagta uu ururinaya haddii ay tahay zako oo dadkii uu zako ka soo qaaday waa ogtihiin oo in badan oo dadka ka mid marka hawl la weydiiyo zakada ku beegaan zakada ayay waxa weeye ku beegaan waxa la oranayaa dad baahan ayaanu haynaa hebelo wax soo si $100 baa lagu soo qoray oo dad baahan waxa laga yaabaa inuu zakadii ka bixiyo waxaas haday zakat tahay waxa weeye lacag ku qaadan maayo waayo waajib ka wax bixinaya lagu leeyahay ayuu ugu kaalmaynaya inuu waajibkii ku caawiyo oo lacagtii uu gudbiyo miskiinka haddii la yidhaahdo miyaanu soo gudagalayn walcaamiliina calayha oo hadda aad loo waasiciyo 8 zakada la siinayay alla subxaanahu watacaala markuu tahay inama sadaqaatu lilfuqaraa walmasaakiin walcaamiliina calayha waxaa ka mida dadka zakada la siinaya kuwa ka shaqeeya oo ah kuwii soo ururinaya kadibna qaybinaya yani dadka intay ka soo qaadaan masaakiinta u gudbinaya culimadu waxay yidhaahdeen alcaamiluuna calayha waa kuwa dowladdu magacawday waa kuwa diiwaan gashana shaqaalaha dowladda ah ama diiwaanu zakaa diiwaanka zakadu uu shaqo geliyey kuwa noocaasa weeye haddii la sameeyo hay-ad zakada qaabilsan oo dowladdu dhistay oo soo jamcinaysa zakada kadibna qaybinaysa waxaa xaq loo leeyahay dadkaa ka shaqaynaya xoolihii zakadee ay jamciyeen mushahaarka iyaga in laga siiyo oo mushahaarkana dowladdu aanay siin walcaamiliina calayha wey laakiin qofku inuu ismagacaabo oo uu yidhaahdo zakadaan dadka ka jamcinaya waanan qaybinaya waxaanan goosanaya $10 ama mushahaar $2,000 ama bishii u xaadiraya isagu isu hayo cidina aanay ka xisaabine waxa weeye tan noocaasi sax maaha waa markaynu ka hadlayno wixii waajiba zakaya wixii la mida waxaa soo hadhay qadiyada labaad ee ah tabaruca wixii waxa weeye samafale axsaana ee dadku tabaruc ahaan ay u bixinayaan cidii la doonaba ha la siiyo masjid baa lagu dhisayaa dad tabaalaysan baa lagu taakulaynayaa hawlo kale oo khayriya baa lagu qabanayaa qofkiina sadaqa ahaan buu la baxaya aan zaka ahayn ta noocaasa asalka horta waxa uu yahay qofku wanaag iyo samafal inuu kaga shaqeeyo sidaas asala alla wuxuu yiri wata'aawanuu 'ala al-birri wat-taqwa lacagtan ma nin baad ka soo qaad waji baad kaga soo qaad wanaag inaad ka shaqeynaysaad kaga soo qaad inaad adiga laftaadu tacabaad ku darsato midina xoolo bixiyay adiguna xoog baad bixinaysaa taasaa asala laakiin qof haddii la waayo ama ay adkaato cid ku shaqaynaysa tabaruc la waayo oo qof waliba waqtigiisii u mashquuliyay oo dad hawlaha noocaasa u quman la waayo waxaan leenahay min baabi almaslaxa qofku mushqaayad buu qaadanaya laakiin mushqaayadu qaadanaya waa maxay sax maaha inuu yidhaahdo lacagta soo baxda 20% ama 10% baan leeyahay oo go'an oo مثلا nin buu u tagaya daabshil buu u tagaya wuxuu oranayaa $100,000 baa loo baahay mashruuc baa la fulinaya kelmad buu ku oranayaa 100,000 buu gacanta ka gelinaya 10% intee noqonaysa 10,000 waa $10,000 $10,000 buu waxa weeye jeebka gashanaya wax sax ma waayo tan noocaas waxa ka soo baxaysa hawl yar oo fudud inta uu qabto lacag badan oo aan istaahilin inuu qaato يعني سؤال شيء يرى كبحضي لعقت كسو غشيه تبرع وجهيسا لغو سو بخيي وجهuna wax la iibiyo ma markaynu sharciga ka hadlay boqolka kun waxa la igu dhiibay magac baan leeyahay waji baan leeyahay ana la ii soo istaagay tan noocaas lafteeda zakadeeda laga doonay inaad lacag ku qaadataa sax ma laakiin waxaad lacag ku qaadanaysaa waqtiga iyo tacabka aad bixisay marka waxaad qaadanaysaa mushqaayad
u qalanta tacabka iyo waqtiga iyo juhdiga iyo socdaalka iyo safarka aad gashay iyo habeendhaxa aad samaysay wax waxa weeye u dhigmo u qalma ayaad waxa weeye qaadanaysaa laakiin percentage iska go'an hadday yaraatay haddii ay badataba iyadu waxa weeye waxa ku jira ziyaado iyo xayf iyo jawr baa waxa weeye ka muuqda waxa weeye tan noocaasi mid sax ma waxaana habboon qofku hadduu doonayo insaaf hadduu doonayo xalaal miirad iyo warac hadduu doonayo waxaa habboon lacagta uu soo xareeyo inuu xisaabiye yeesho meel lagu hagaajiyo iyo akoon lagu soo hagaajiyo cid kale ay u xadayso waxa uu leeyahay iyo tacabka ka baxay ayay waxa weeye ku habboon tahay laakiin adigu haddaad jeebka ku shubayso jeebkana ka saarayso mushqaayadaadana kala hadhayso alkullu fi lkull ya wuxuuba xaggaaga ay tahay ta noocaasa qofka waxbaa ugu soo dhuumanaya munaasibna ma aha marka waxaan leenahay tafsiilkaasaa ku jira in laga xalaal mirataana way fiican tahay mushqaayad in laga qaataana way bannaan tahay laakiin mushqaayadaasi waa biqadri alcamal juhdiga aad bixisay wax munaasiba iyo wallahu aclam jazaaka allahu khayran saa'ilkani wuxuu leeyahay sheekh anigoo sooman ayaan islaaway xaaskaygii baan u tegay bimacnaa u galmooday soonkii ma iga jabay hadduu iga jabayna maxaa kafaare igu waajibay su-aashu waxay tahay qof sooman bishii ramadaan maalinkeedii isagoo is-ilowsan xaaskii uu tegay sideedaba sharciga markaynu ka hadlayno ilowgu waxyaabaha laysu dhaafa wey rabbanaa laa tu'aakhidna in nasiina aw akhta'na waxaa la weydiistaa alla subxaanahu wa tacaala hanoo qaban haddii aanu wax ilowno ilaahay waxau ihi qad facaltu waan yeelo oo idiin qaban maayo ilow waxaa nabiga ka sugan calayhi salaatu wasalaam rufica can ummatii alkhaطأ wاlnisyaan ummadayda waxaa laga kor qaaday in loo qabto waxay hilmaamaan ama ay ku gafaan wixii la ilaawo hilmaan hadalkuma jira bay soomaalidu yidhaahdaan wixii hilmaan u dhaca waa la ysu cafiyey laakiin waa wixii uu ka suurogelaya hilmaan bishii ramadaan harhkii galay qofku isagoo sooman suuragal miyay tahay isagoo ilowsan xaaskiisa inuu u galmoodo horta dee sidaynu qiyaasayno xaaska lafteedu waa soomanta way xasuusinaysaa warda waynu soomanna haddii iyadu aanay soomanaynna way og tahay isagu inuu sooman yahay war maadan soomanayn hadda iyadu macduur tahayba say doontaba ha u dhacdo waa baciid marka culimmada qaar waxay yidhaahdeen baabka noocaasa hilmaan suuragalka ma ah laakiin waxaynu ku soconaynaa qowlka xooga badani waxa uu yahay inaan la kala qaaday qofkana ilaahay baa la xisaabtamaya haddii uu ilowsan yahay ficlan ay ilow uga dhacdo islaantuna ama ha ilowda ama diyaarba ha iska ahaato say doontaba waxa u dhacdo waxa weeye waxaasi uu ka dhaco ilowgaasina uu sugan yahay oo naftiisa uu og yahay qallana laguma laha kafaara gudna laguma laha kuna dembaabi maayo macduur buu noqonaya dee waana dhacdaa haddoo inta badan bishii ramadaan hadda fasax bay gashay fasaxaasina aroosyadu waa badanyi ninka arooska ahina dee waxa weye wax walibaa ka suuragal wallahu tacaala aclam jazaaka allahu khayran su-aasha sideedaad saa'ilkan wuxuu leeyahay sheekh waa maxay xukunka mudaharaadada mudaaharaad waa la fahmayaan filaya waa isu soo baxa dadku ay isu soo baxayaan la isu soo baxayo ee waddooyinka la marayo iyadoo looga jeedo codsi in la gudbiyo
ama in wax la diido ama dadku ra'yigooda inay cabiraan isa soo baxa noocaasa in la sameeyo. horta markaynu taariikh ahaan ka hadlayno taariikhda islaamka laguma hayo wixii dowladooda islaama dowladii nabiga calayhi salaatu wasalaam nabigu soo dowlad ma maamulay saxaabadii kumay mudaaharaad lama samay alkhulafaa raashiduun muddadii iyaguna ay xukumayeen 30 sano gaadhaysay abi bakar wa cumar wa cuthmaan wa cali wax mudaaharaada lama sheegin. dowladii ka dambaysay alkhilaafa alumawiya wax mudaaharaada lama sheegin. alcabaasiyiin baa la mida taariikhdii islaamka laguma hayo isu soo bax noocana laakiin way dhacaysay ra'yi in la cabiro. wuxuu nabigu calayhi salaatu wasalaam xadiidka abi saciid afdalu ljihaad kalimatu xaqin cinda sulطaanin jaa'ir. xaqa in la sheego wixii khaldan in la soxo asaaliib iyo wadooyin buu sharciga u dhigay. marka mudaaharaadka la joojiyo macnaheedu in la iscaburiyey maaha laakiin wadooyin sharciya ayaa kitaabka iyo sunnada laynoogu sheegay oo dadku ra'yigooda ku muujinayaan khaladkana ay ku saxayaan. man ra'aa minkum munkaran falyugayirhu biyadih fain lam yastatic fabilisanih fain lam yastatic fabiqalbih. addiinu nasiixa qulna liman qaala lilah walikitaabih walirasuulih walia'immati lmuslimiina wacaamatihim. madaxda muslimiinta in loo naseexeeyo maxaa loogu naseexaynayaa waxay samaynayaan ama ay ku hadlayaan bal waxa weeye looga naseexaynaya ama waxay habboon tahay inay sameeyaan ayaa loogu naseexaynaya. waa labadaasu in khalad lagu saxayo iyo wax wanaagsan in laysku guubaabinayo. wadooyin badan baa la haystaa. wadooyinka hadda waxaa ka mida waxa weeye qofku inuu taladiisa cidda ugu dhow u mariyo madaxda usluub wanaagsan jaraa'idka inuu ugu qoro usluub wanaagsan miidiyaha inuu kaga hadlo codsiyadiisa uu gudbisto. waxyaabahaasoo dhani waa majaalaad weeye in waxa weeye codkaagii aad gaadhsiiso madaxda dowladda qaabo badan baad u haysataa. marka waxaan leenahay mudaaharaadku marka dhinacyadaaba laga eego ujeeddadii looga jeeday wadooyin kaloo sharciya loo hayaa lagu gudanayo waa qodobka labaad ee wax taariikhda islaamka lagu hayo oo saliya raad kulana ma aha. labada marka la isu geeyo waxay noqonaysaa wadooyinka saxa in lagu kaaftoomo. laakiin taa waxaa sii wehelisa waaqicina markaynu u soo degno mudaaharaadka marka la samaynayo dadku waxaa laga yaabaa inay wanaag uga jeedaan. waa marka dee qolada macnaha wanaagsan u samaynaysa odhanaya mudaaharaadku waa tacbiir silmiya yacni waa qaab nabadgeliyo oo dadku ay ku cabirayaan ra'yigooda. marka xitaa taa lagu socdo ujeeddada looga jeedaa waa maxay? horta wax xaq ma u leedahay waxaanaad ka hadlayso waxaanaad cabiraysa lafteeda waxyaabahaasoo dhan baa u baahan in la eego. laakiin markaynu waaqiceenna usoo degno mudaaharaadku waxaynu u bisin lahayn maaha. fasaadkiisaana ka badan niyada wanaagsan ee dadku ay u jeedaan. waa haddii ay niyaduba wanaagsan tahay. marka la ysu soo baxo waxaynu ogsoonnahay wadooyinkii baa la xidhaa. waxaa dhaca shiid baa dhaca dhibaatooyin baa la geystaa. gawaadhi haddii la isticmaalayana waxaa laga yaabaa dad inay ka daataan ama gawaadhidu isjiidho ama dad la jiidho. waa marka la ysu soo baxo waxaa laga yaabaa dad kale iyo ganacsiye in wax loo geysto oo la shiido. dadkii xumaanta doonaya ama tuugtiibaa u dhex raacaysa. dadkii danaha lahaa ee waddada isaga gooshayay baa wadooyinka laga xidhaya. dhibaatooyin badan baa bulshada ugu sugan. marka waxaan leenahay mudaaharaadku wax saxa maaha in la sameeyo. waxa weeye wax saxa maaha in laga waantoobaa fiican. in waxa weeye laga qayb galana ma aha. in laga qayb galana oo waxa weeye loo camiro oo la taageero ama dadka loogu yeedhaana sax maaha. in
inta badanna daddan laba abaabula waayo dadku waa laba ra'yigan aynu leenahay waa la gudbinayaa nin baa wata cid baa wadata oo dan kale dadka kalena waa urku kacsi weey dadkan bacadka taagan ee ordaya ee waxa weeye waqtigoodina luminaya tacabkuna uu galayo tacabka badan uu ka baxayo dadka noocaasi in badan oo kamid waxay u socdaan ma fahansana waxay u socdaan waxa weeye ma fahansana habeenun baa lala hadlo waxa la isu soo baxa waxaana laga yaabaa waxa kalifaya dabada ka wadaaba inay tahay macnayaal aan wanaagsanay waxa laga yaabaa inay qabyaalad inay tahay baa laga yaabaa iyo waxaan habboonay marka la isu soo duuduubo wax habboon ma aha sharciga allana kuma habboona dhaqankeena iyo curfigeena iyo caadadeena iyo xaalkeena munaasib uma aha fasaadkeeda ka badan wallahu ta'ala aalam جزاك الله خيرا سؤال سغالاد سائلكن wuxuu leeyahay sheekh gabadhan guursaday oo wali aan la aqal gelin wax xuquuq ma igu yeelanaysa xuquuqda kulli way badan tahay gabadh uu guursaday oo aanu la aqal gelin muu sheegin furitaan muu sheegin hadduu guursaday oo aanu la aqal gelin oo uu furay waxay ku yeelanaysaa meherka barbay ku yeelanaysaa nisful mahr meherkii loo magacaabay ayay nus ku yeelanaysaa taasi waa taas laakiin waxay u egtahay su'aashu gabadh mehersan oo aanu furin biil ma ku leedahay iyo wixii la mida guri iyo biil iyo wixii la mida taa jawaabteeda kooban waxay tahay gabadhu waxay xuquuq yeelanaysaa marka iyada lafteedu xuquuqdii ka soo baxdo xuquuqdii markay ka soo baxdo xuquuqdaasi waa maxay tamkiin inay diyaar tahay oo ninka ay isu diyaariso xaqii way ku leedahay laakiin sida hadda dhacda haddii waxa weeye waxay ku yeelanaysaa markaa biil bay ku yeelanaysaa guri bay ku yeelanaysaa iyo waxyaabihii la midka ahaa laakiin taa haddii la waayo oo maalan gabadhu ay leedahay sida dee dhacda ii soo dhowaan maysid ilaa aqal aad ii dhisto biilla ku yeelan maysa xuquuqna ku yeelan mayso waayo biilka waxay yeelanaysaa wixii biilka loo siinaya marka laga helo marka waxay noqonaysaa isaguna inuu soo diyaargaroobo iyaduna is soo diyaariso maalintii arooska dhistaan baa xaqeedii loo bilaabaya oo kow uu ka yahay guri iyo biil uu kow ka yahay taasi waa taas wixii curfiya ama xuquuqee wanaagsan ee isku leeyihiin labada qof iyada la diidi maayo laakiin waajibkeenu ka hadlayna xuquuqda waajibka ay markaasay bilaabaysa ninka ay u bilaabaysa masalada kale haddii gabadhu nafteeda ay u tamkiiniso oo ay tidhaahdo intaad guriga inoo dhisayso mid ku meel gaadhaan inoo haya min leylin aw nahaar xilligaad ii timaadana jaanis baan ku siinaya oo nafteeda ay makaniso ta noocaasa way ku yeelanaysaa xuquuqdeeda way ku yeelanaysaa nafteeda hadday isu diyaariso oo isagu uu ka gaabiyo waxa weeye xuquuqdeeda haddii ay ka dalbato way ku yeelanaysaa wallahu tacaala aclam جزاك الله خيرا سؤال تبنات سائلكن wuxuu leeyahay sheekh xaaskii aan qabay hadii ay safar u baxdo oo aan iga idan qaadan aniguna aan raali ka ahayn oo ay tiraaho waalidkayba idan siiyay ama fasax siiyay xukunkeedu muxuu noqonayaa gabadhu hadday socdaal gasho odaygeedu aanu ogeyn waa naashiza weeye يعني وقبض ناشزة كذا عاصبي وحين كويسة حقوق بي كويسة انت اي مقنتها هاي حقوق دي اي لجرت يالا الميس وحين كون متيسنيسا ذنبي بي كون متيسنيسا نكيدو وانو اوغيهي وانay ka fasax qaadataa sida sharcigeenu sheegay waayo xuquuqdu ku leeyahay bay kamid tahay xuquuqda uu ku leeyahay ayay kamid tahay
marka fasax la'aan socdaal safar inay gasho waxa weeye uma bannaana waa inay odageeda weydiisataa inuu ciqaabana oo masaariifta maalmaha ay maqan tahay ama muddada ay ka maqan tahay uu ka gooyo waxa weeye xaq buu u leeyahay wallahu ta'ala جزاك الله خيرا سؤال شكوية تبناد سائلك وحليه شيخ وحين وكسونا هاي دل كان يكون الله سومالي لان إن مدحوين عصب لو دورتي مدحوينها عصب محات كلتن الله هاي كودادهان أما كوداد أهان وحوي كل تلادو وصعونيسا qof walibana wixii ula muuqday insha Allah ta'ala maanta ugu baahi baday waayo wuxuu maamulaya waa bulshada danaheeda inuu u qomo oo isu taagaan laga doonaya danaha ay bulshadu leedahayna dadku iyaga og danaha ay leeyihiin marka wixii talaa sidii xadiidkii Tamiim ad-Dari hadda aan sheegay waxa weeye in la taliyo oo talooyin la siiyo cid waliba waxay u muuqanaysaa cidii la gaaraysaa aad bay muhiim u tahay talada ugu muhiimsan aan u soo jeedinaynaa waxay tahay in Allah subhanahu wa ta'ala uu naftiisana uu kaga boqo iyo xilka uu hayo mas'uuliyadda dadka ka saaranna inuu Allah subhanahu wa ta'ala kaga boqo tala waxay ku dhantahay Allah ka cabsi inuu Allah subhanahu wa ta'ala kaga boqo mas'uuliyadda waxa weeye loo dhiibay talada labaad waxaan kula talinaynaa awalan culayska inta leega soo wajahay iyo xilka weyn ee loo igmaday inuu la kaashado Allah subhanahu wa ta'ala oo ilaahay uu weydiisto Allah inuu ku garab galo xilka noocaasa oo Allah subhanahu wa ta'ala aanu ku kashifin qadiyada saddexaad ee muhiimka ah waxay tahay wuxuu dhisayaa team la shaqeeya shaqaalihii dawladdu magacaabi doona ugu waaweynaa ee laamaha dawladda maamulayay oo wasiiradu ay ka yihiin cidda uu xulanayo ama uu magacaabayo iyadana Allah subhanahu wa ta'ala inuu kaga boqo marka la eegayo cidda la magacaabayo waa inay noqotaa cid waxa loo magacaabayo aqoon u leh cid karti u leh cid ammaano leh oo lagu aaminayo tanoocaasa inuu aad uga baran daga insha Allah ta'ala kullayde xisaab beelad ba iska imanaya laakiin beel walba intii loogu talagalay xitaa laga sii xisho oo aanay noqon waxa weeye cidda waxa weeye hoos ordaysa ama cidda qabqableynaysa ama ciddii campaign-ka u gashay oo kaliya inaan laga eegin kaasi waajibkiisu soo gutay laakiin cid ehel u ah in waxa weeye laga eego waayo ta noocaasa guusha qarankuna tahay guushiisuna tahay waana dadka matalaya hawsha laga sugayo waa dadka u matalaya weey tana aad baan insha Allah ta'ala kula talinaynaa kafaa inay leeyihiin amalka munaasib u yihiin ammaana inay leeyihiin oo ummadda hantideeda lagu aaminayo tanoocaas insha Allah ta'ala baan kula talinaynaa qadiyada ku xigta waana halkay u dhimatay hantida guud hantida qaran xoolaha ummaddu ay leedahay dekada barbaro wixii ka soo baxaya lacagaha kale dawladeed waa lacag la wada leeyahay weey madaxweynena malaha wasiirna malaha agaasimana malaha barasaabna malaha maayarna malaha shaqaale dawladeedna malaha waa xoolo la wada leeyahay weey iyaga waxa xilun baa fuulay inay maamulaan mushaharkoodana ay ka qaataan hantida qaranna in aad iyo aad la isaga ilaaliyo nabigu calayhi salaatu wasalaam waxa uu yiri man istacmalnahu ala amal fakatamna mikhyatan fama fawqahu kana ghululan yati bihi yawm alqiyamah ninka aanu hawl u dhiibano ee xilaanu u magacaawno ee qarsada irbad wax leeg waa irbad wax leeg iyo wax ka badan waa khiyaano maalinta qiyaamo uu la imanayo nabigu wuxuu sheegay calayhi salaatu wasalaam wixii uu xaday ama uu lunsaday
maalinta qiyaame garabka ama dhabarka in loo saaraya ama qadaadka wuxuu keenayaa hadday dahab ahayd isagoo qoorta ku sita dahabkii geel haddii ay tahayna geeli isagoo luqunta ku sita kadinkeela hadduu lunsado ilaahay baa og awood baa la siinaya maalinta qiyaame kadinkaba wuxuu ku qaadayaa surkiisuu ku qaadayaa kadin geeli iyo tirada adhigaaba wax allaala wuxuu lunsaday marya hadduu lunsadayna tunku ku qaadaya waa maalinta qiyaame khalaa'iqdoo dhan baa arkaysa xoolaha bini aadamkee gaarka ah sharcigu halkuu dhiga haddii la og yahay maxaad u malaynaysaa xoolo ummaddu ay wada leedahay qadiyadda noocaasa aad baa hadda loo sahashadaa madaxweynaha waxaanu kula talinaynaa kollay madaxweyneba hadduu gaadhay noloshiisa inta ka hadhay faqri ka walwali maayo waayo dowladdaaba inta u hadhayba u damaanad qaadaysa ixtiraam buu ummadda ku leeyahay hadduu xitaa xilka ka dego waxa weeye marnaba qadi maayo faqri looga biqi maayo nin madaxweyne gaadhay waxaanu kula talinaynaa ummadda hantideeda inuu ilaaliyo cumar bnu lkhadaab oo dowladtan ka weyn maamulayay oo khaliifatulmuslimiin ah oo akoonnadu u buuxeen oo caalamulislaami dowladda keliya lagu hayay ka talinayay caalamulislaami oo dhan madaxweyne u ahaa waxa weeye siduu ku noolaa waa la ogaa mushahaarkuu qaadanayay waa mushahaarkii saxaabada caadiga ahay ay qaadanayeen marka madaxweynuhu mushahaarka ugu badan ee madaxweyne qaataba ha qaato ka badan ummadda inuu ilaaliyo shaqaalihiisa hantidooda uu ilaaliyo dad lagu kalsoon yahay hantida uu u dhiibo bangiyada iyo maaliyadda iyo akoonnada dad aamini ay hayaan ta noocaasa waxa weeye qarankanna horumar ku gaadhayaa waxa weeye dano badan oo bulshadu ay u baahan tahayna waxa weeye la gaadhayaa taasaanu aad iyo aad ugula talinaynaa insha allahu tacaala talooyinka noocaasa ayaan insha allahu tacaala kusoo koobaya wallahu aclam jazaaka allahu khayran su-aasha 12aad ee aynu ku soo gabagabayn doonno insha allahu tacaala majliskeenna waxay noqonaysaa oo saa'ilka uu leeyahay sheekh ma u dagaalami karaa calanka waddankayga ama ma u dhiman karaa oo ma u dagaalami karaa waddanka aan waxa weeyaan ka soo jeedo su-aasha jawaabteeda kooban waddankaasi haddii uu yahay waddan muslima oo aad ka soo jeedo laguna soo duulo cadow ku soo duulo waxa weeye dhimashada aad u dhimanaysaa waa difaac aad waddanka muslimka aad difaacayso waa difaac waddanka muslimka aad difaacayso marka waxa weeye waa difaac islaam la difaacayo ayay noqonaysaa dhul muslim haddii lagu soo duulo oo qofku uu niyoodo waddankiisa muslimka ah inuu cadowga shisheeye ka difaaco oo uu sidaa u dhinto waa qof islaamka u dhintay wey waa qof islaamnimo u dhintay laakiin haddii niyooyin kale meesha ay soo gasho oo maalan qabyaalad uu u dhimanayo ama istusnimo uu u dhimanayo ama magac u dhimanayo iyo wixii la mida ta noocaas waxay noqonaysaa fii sabiili illah noqon mayso fii sabiili maa nawa wixii uu ku talagalay jidkiisa ayuu u dhintay kii alla uma dhiman laakiin waddan muslim waa loo dhimanaya waxay la mid tahay waa min aljihaadi fii sabiili illah waa baled muslim haddii lagu soo duulo waxa weeye in la difaaco difaaca la difaacaya ayay noqonaysa wallahu tacaala aclam jazaaka allahu khayran ilaahay subxaanahu wa tacaala sheekha ka abaalmariyo 12 su-aalood ayaynu caawa insha allahu tacaala ku koobsanaynaa maadaama bilow barnaamijku yahay